بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa gurdhow soo cidlaaday kulan gaar ah ay iskugu yimaadeen madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe iyo ra'iisul wasaaraha kaasi oo diiradda lagu saarayay dhismaha xukuumadda cusub ee loo wareedo ku dhow bila Soomaaliya ayaa sheegay in madaxdu ay isla meel dhigeen in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu codsaday 10 maalmood dheeraad ah. kulankani ayaa ka dhacay bila Soomaaliya waxaana la isla qaaday fursadda u dalbaday la siiyo ra'iisul wasaaraha iyo wadaya la tashiisa ku aadan dhismaha xukuumad tayo sare leh. waxa ayna madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Xamse la qaateen qorshihiisa muddo kororsiga. ra'iisul wasaaraha ayaa dhameystay 30 cisho ee xukuumadda lagu soo dhisi jiray, inkastoo aysan dastuur ahayn in 30 cisho lagu soo dhiso xukuumad. haddana waa sunno siyaasadeedka Soomaalidu leedahay. waxa ayna maalmahaasi ra'iisul wasaaruhu u bilowdaan markii la ansixiyo, waana dhaqan soo jireen ah. anigu magacyadooda hadda sheegi maayo, aniga dad ii xiga jeebkana kuwa toole madaxweyne anagu jeebka noogu jira. waxaan ka codsanayaa madaxweynaha arrintaas inuu soo farageliyo. haweenka Soomaaliyeed ee ganacsiga qaadka mirooga ah laga keenay Kenya ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho iyagoo ka cabanaya xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya. qaar ka mid ah haweenkaasi warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in xildhibaano ka tirsan dowladda ay doonayaan qaadka la keenayo Soomaaliya ay saartaan in ka badan $5 kiiladii, ayagoo ka taabaya intaasi aysan qaadi karin. wax sangaabo oo ka mid ah sida adag uga hadlay arrintaasi ayaa fariin adag u dirtay madaxda dalka, gaar ahaan madaxweynaha, sida ay sheegtay xubnaha siyaasiyiinta u dhow yihiin madaxweynaha. qowleysato dowladda iyo anaga noo dhaxaysa oo waliba ah wasiiro iyo xildhibaano anaga namatala ayaa rabto ay lacago riba ah saartaan. Xasan Sheekhow yaan dhiiqo lugaha lagu gelinin sida ay tiri wax sangu. hadalkan ayaa imaanaya kadib dhawaan heshiis u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay madaxdooda ay ku galeen dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, lagu fasaxayo qaadka mirooga laga keeno Kenya. fadlan haddaan ugu cusubtaan ugu soo biir, like inoo saar, saaxiibadana la wadaag, YouTube-kana subscribe inoo saar, like inoo saar, noo soo share gareey, saaxiibadana la wadaag si aan u helno saaxiibo adigoo kale ah. dhiirigelina noo noqoto. mahadsanid.